Audio Jungle. Audio Jungle. Ahmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay inay xakameyn doonaan hubka soo gala gacanta dawladda mar haddii laga qaado Soomaaliya cunaqabateynta ka saaran dhanka hubka. Wasiirka ayaa intaa raaciyay in qaramada midoobay mar waliba ay u sheegaan in dadaal weyn ay sameysay Soomaaliya ayna damaanad qaadayso hubka soo gala gacanteeda isla markaana aanan u gudbi doonin dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee dagaalka kula jira dawladda. Ahmed Ciise Cawad ayaa hoosta ka xariiqay in rajo wanaagsan ay ka muujinayaan in qaramada midoobay ay ka qaado Soomaaliya cunaqabateynta muddada dheer ka saarneed dhanka hubka arintaasina ay kaalin muuqda ka qaadan doonto sida uu hadalka u dhigay dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. xukuumadda ballan waa damaanad qaadaysaa inay hubka Soomaaliya u yimaado inay dawladda gacantiisa ku jirto. System fiican ayaa loo sameeyey adaha u qaabilsan ama panel of experts oo yiraahdo u qaabilsan xaliyada UNta kormeerida ama hubinta in hubku uusan gacan qalad ku dhicin way ka barqaan tifreen in qaabka ay Soomaaliya hadda hubka u maamusho inuu yahay mid biyo kama dhabcaana oo lagu hubin karo inaan hubku gacanta u gelin Al-Shabaab. markaanu dalalka kale la kulannana ama dadka khusayso UNta hay'adaha khusayso waa u sheegnaa marka dad kale kalaangal siyaasadeed ma sameyn waa dad iska mala awaalayo aan xogta dadaalka socda aan ogeyn. hadalkan ayuu ka sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Ambassador Ahmed Ciise Cawad xilli uu wareysi siinayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa loogu baaqay inuu xalliyo tabashada Somaliland sida uu ku ambaqaadayo warkan Maxamed Cali Maxamed. magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa markii ugu horeysay ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyadoo la sheegay in kulan garwadeen uu ka ahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa. kulankaani xog dheeraad lagama hayo hase yeeshee warar soo baxaya ayaa sheegaya in laga hadlay sidii loo xalin lahaa khilaafka iyo tabashada ay muujinayso Somaliland. dadka ka falanqooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya kulankaasi waxaana ay sheegayaan in natiijada laga filan karo kulamo kale oo ay yeesheen madaxdaasi aanay suuragal ahayn. sidoo kale dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in xilliga ku soo beegmay kulanka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo midka Somaliland uusan ahayn mid micno badan soo kordhinayo. Danjira Caalin oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya inay xaliyaan tabashada ay qabaan Somaliland. dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa sidoo kale waxa ay shaaca ka qaadayaan in loo baahan yahay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xaliyo tabashada ay muujinayaan Somaliland isla markaasina uu tago magaalada Hargeysa ee Somaliland inkastoo dadka qaarkood ay sheegayaan in xilligan aysan suuragal ahayn.